waxaa jira 3 heer ama 3 marxaladood oo qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu maro si uu u foojignaado. 3 heer waxay kala yihiin heerka sababeynta, heerka cadaaladda iyo heerka dulqaadka. haddaad doonto waa oran kartaa marxaladda sababeynta, marxaladda cadaaladda iyo marxaladda dulqaadka. insha allah 3 shay waxaan ka bilaabi doonaa sababeynta iyo muhiimadda ay leedahay qofka in uu ogaado sababta uu wax u sameynayo. cadaaladda iyo dulqaadkana hadduu waqtiga ii saamaxo waan raacin doonaa, haddii kalena insha allah habeenka kale aan qolka ku kulanno ayaan dib ugu dari doonaa. waxaan ka hadlaynaa oo aan ka hadlaynay cunsuriyadda iyo qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay qofka sababta uu u sameynayo. qofka markuu sameynayo camalkan cunsuriyadda ama camalka midabta koorka ama camalka qabyaaladda ama ficilka ama camalada keeni kara in la liido dumarka ama wax kastoo keeni kara in qofka bini aadamka ah la liido ama la dhibaateeyo. qofka markuu sameynayo camaladaas iyaga ah wuxuu jebiyaa oo ku xadgudbaa 3 standard ama 3 marxaladood oo qofka muslimka ah looga baahan yahay in uu maro si uu u foojignaado. sababeyn macnaheeda waxaa waaye inuu qofka wax hubsado, inuu hubsado sababta loogu sheegay wax loo sheegay, inuu hubsado sababta wax loo tusay, inuu hubsado sababta wax loo siiyey. simbali haddaan qof ku xukumo, for example tusaale ahaan haddaan qof ku xukumo wax la ii sheegay oo aan ku iraahdo qofkaas waan necbahay, waxaan ku nacay wax la ii sheegay, waxaad ii qaadan lahayd qof aan aan macquul ahayn. sidoo kale waxaa dhici karta in qof aad ku nacday xumaan lagaaga sheegay oo ay sameeyeen dad ka tirsan beeshiis oo laga yaabo qofkaas inuusan ku raacsanayn. waxaa kaloo dhici karta in wax lagu qurxiyey oo aad jeclaysatay, ama waxaa dhici karta in lagu cabsi geliyey oo aad cabsatay, wax ka cabsatay wax lagu cabsi geliyey adigoon isweydiinin sababta aad u cabsanayso. waxaa laga yaabaa waxa ku cabsi geliyey oo aad ka cabsanayso inuusan lahayn awoodda uu kugu cabsi geliyey. waxaa dhici karta in aqligiiba intaas ku soo koobmay oo aan aragno wax ay dadka sameynayaan annagana aan iska dabagalno oon iska daba raacno oon iska sameyno waxaas oon wax su-aalah iska weydiin. intaas aan soo sheegay kuma habboona qofka muslimka ah. qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay in uu hubsado tallaabada uu qaadayo oo uu iska hubiyo sababta camalkaas uu u sameynayo iyo sababta ku riixaysa inuu camalkaas sameeyo. inuu qofka muslimka iska hubiyo oo iska fiiriyo. hadduu yahay camalka camal qabyaalad ama afaara qabiila, marka si cilmiyeysan loo fiiriyo qofka cunsuriga ah, horta qofka afaara qabiilistaha waa cunsuri. marka qofka cunsuriga ah ama afaara qabiilistaha waa wax uu ku qasban yahay oo waxaa jiro wax riixaya oo ku qasbaya in uu qabyaalad isticmaalo.
waxaa ka mid a fikrado qaldan oo qofka maskaxdiisa ku duuban oo uu ka soo dhaxlay bi-addii ama meeshii ku noolaa 15 sano ee ugu horreysay noloshiisa information ku duuban oo uu soo guraayay muddo dheer intuu kasoo markuu dhashay ilaa intuu kasoo koray about 15-20 years meeshuu kusoo gaaray sidaa awgeed cunsurinimada ama qabiilaysiga waxay ka mid yihiin ififaalooyinka cilmi nafsiga ah ee ku muujinaya in dadka isticmaala intooda badan ay qabaan problem cilmi nafsi ah ama psychological distress oo aysan ogeyn yani waxay qabaan problem cilmi nafsi ah oo bushgaraynaya oo ku riixaya inay qabyaaladda isticmaalaan laakiin ma ay oga waayo maskaxdan subconscious mindka ah ama subconsciouska loogu yeero ma kala saari karto wixii xaqiiqo ah iyo waxaan xaqiiqo ahayn wixii run ah iyo waxaan run ahayn waayo waa maskax aan xaadir ahayn miyirkeedana uusan joogin nasiib daro maskaxdan waa midaan isticmaalno inu hogaamisa 90% nolosheena hadduusan qofka iska ilaalin waxaan u malaynaa dad badan inay arkeen in marka qaarkood laga yaabo inaad gurigaaga ka soo baxdo meelo badan soo marto ama baabuur inaad kaxisaa laga yaaba ama inaad lugeynayso meelo badan aad soo wareegto meelo badan aad soo marto ilaa meeshaad rabtay aad ka imaato adoon ogeyn sidaa ku imaatay marka subconsciouska waa maskaxdaas waxa ku program garaysnaa ku shaqaynaysa isticmaalka maskaxdaas siyaalo badan oo loo yareeyo ayaa jirto waana runtii maskax ilaahay nagu abuuray oon u baahannahay marmarka qaarkood in ay nasiso maskaxdaada consciouska ah oo waxay hore u baratay ee isticmaasho so waxyaabaha lagu yareyn kara waxaa ka mid ah in qofka su-aal isweydiiyo u suuragelinaysa in uu isticmaalo maskaxdiisa xaadirka ama creative mindka loogu yeero luqadda qalaad oo maskaxda wax soo saarka loogu yeero ama maskaxda waaqica la socoto waxyaabaha waaqica la socoto iyo waxyaalaha qofka horyaalo marka qofka waa inuu isweydiiyaa su-aalah maxaa u samaynaysaa waxaan aad samaynaysa si kale uu qofka ku yareyn karo maskaxdan subconscious mindka waxay tahay diinteenna waxayna bartay diinteenna islaamka waxayna bartay in ilmaheenna aan ku korino bay-ad wanaagsan aan runta kula dhaqanno runta u sheegno wax fiican u sheegno ay wax fiican maqlaan si wax fiican maskaxdooda subconsciouska ay ugu duubmaan wax fiican aan isku dayno inay arkaan oo aan ka leexino in ay daawadaan waxyaabaha xunxun si maskaxdooda ay ugu duubanto waxyaabaha wanaagsan diinta ilaahayna aan barno waa yani waxyaabaha diintana barto loo isticmaalo sababta loo isticmaalo ereyada ay ka mid tahay subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah acuudu billahi min ashaytaan rajiim ereyadaas oo dhan waa ereyo kugu haynayo consciouskaaga ku haynayo cabsida ilaahay qofka cunsurigaa marka wuxuu rabaa inuu kugu darsado liistii maskaxda ugu jiro oo ama ah dad uu xumaan qalbiga ugu haayo oo uusan wax wanaaga la rabin oo uu ka walwal qabo inaad noqoto dadkaas culays badan ayayna ku haysaa ama wuxuu rabaa inuu ku ogaado oo aad ka mid noqoto dadka markaas uu jecel yahay oo isu haysto inuu asaga ka midka yahay
si uu kugu soo dhowaado isagoon isweydiinaynin sababta uu u samaynayo inay macquul tahay ama macquulkal tahay in kale. sidoo kale waxaa muhiim ah in uu qofka miisaamo dadka ku hareeraysan waxa ay samaynayaan inay macquul tahay iyo in kale. yani dadkan kugu hareeraysan, dadka aad la socoto, waxa ay maalin walba samaynayaan ma macquulba mise macquulku way ka baxsantay. ma aha qofka inuu iska ogolaado oo uu iska raaco oo uu iska noqdo qof wixii loo sheegaba raaca. inta badan dadka qofka afaara qabiilistaha uu ku adeegto oo qabiilka uu kasoo dhex saaro oo intuu qol ku soo xirto meel ku shiriyo uu ku shaqaysto waa dad yesman yani jaalle okaya so oo loo sheegi karo qabiilkeenna baddu malayga ka saari jiray okay, shimbiruhu geedaha ka kicin jiray okay, wixii loo sheegaba waa okay. marka dambe saaxiibkay okay, master okay, waxaa loo sheegaa inuu qori qaado, wuxuu dhahayaa okay. dariskaaga soo dil, wuxuu dhahayaa okay. yacni qof ka fikiraya oo asaga tiisa ka fikiraya ma aha, waa qof taariikhdii loo sheego iyo wixii loo sheego sideeda ku qaata oo fuliya. subxaan allah, subxaan allah. sidaa ognahay daanyeerka, geedkan daanyeerka la dhaho wuxuu jecel yahay banaanaha ama muuska. soomaalida afaar qabiilistaha ana waxay jeceshahay qabyaaladda iyo qabiilka. waxaa jira marka tijaabo lagu sameeyey 5 daanyeer, waxaana 5 daanyeer lagu xiray qol yar oo uu yaallo miiska dushiisa ama saqafka qolka waxaa lagu xiray qasabado iyo tuubooyin ay biyo qabow ka imaanayaan. so waxaa naqaanaa marka daanyeerka inuu jecel yahay muuska iyo banaanaha. waxaa la sameeyaa marka ay saynisaanada samaynayeen, waxayna baarayeen aqliga daanyeerka intuu la egyahay. waxay 5 daanyeer miiska u saareen banaana ama muus. daanyeerka marka maxaa lagu yaqaanaa? isla markiiba wuxuu kusoo orday banaanihii inuu isku diriro oo cuno, laakiin waxaa lagu furay qasabadihii biyaha qabow lahaa hal mar lagu sii dayo. daanyeerkii waa qaboobay, waa raday, mooskii waa cuni waayey. mar allaala markuu daanyeerka mooskii u jeclaa ama muuskii u jeclaa ama banaana markuu taabto waxaa lagu furaa biyahaas qabowga. markii maalmo lasoo dhaafay 5 daanyeer oo maalin walba mooska markay taabtaan biyaha qabow lagu furo, waxay fahmeen xiriirka ka dhexeeya mooskan iyo biyaha qabow ee lagu furay. waxay marka bilaabeen in ay si wada jir ah u garaacaan daanyeerkii taabta mooskaas si ay kulligood uga badbaadaan ciqaabta biyaha qabow ee lagu radinayo. so maalin walba kii ilhilmaamo oo soo kaco oo moos cusub oo miiska saaran arko oo ku boodo, isagana waa lagu soo boodaa, waa la garaaca. maalmo kadib saynisyahanadii waxay arkeen si kasta oo moos loo saaro miiska daanyeerka oo daanyeeradaas 5 ah ay u baahan yihiin, mooskii ma taabanayo. waayo hadduu mid ka mida taabto 4tii kalaa ku goobanayso. marka qof taabanayo male, mooskii waa la iska dhaafay, meeshiisa lagu dayay. saynisyahanadii marka waxay ku noqotay arrin cajiiba siday isu beddeshay dabeecaddii daanyeerka ee mooska jeclayd
inuu mooskii ka dan lahayn ama banaanihii ka dan lahayn. yacni bointiga meesha ku jira waxaa waaye daanyeerkii dabeecaddiisii conditionkii iyo xaaladdii la geliyey aaweed way bedelmatay. waxay sameeyeen marka waxay ka bixiyeen hal daanyeer waxayna kusoo bedeleen mid cusub oo dardartiisa qaba oo biyaha qabow aanan ogeyn, banaanihii uu jeclaa oo miis saaranna arko cidina cid daanyeerka loo aadaya inaysan jirin. waxaa dhacay marka isla markiiba daanyeerkii cusbaa wuxuu ku booday sidii daanyeer lagu yaqaanay, wuxuu ku booday mooski. laakiin maxaa dhacay daanyeeradii afarta ahaa ee meesha ku jiray yaa isla markiiba kusoo booday oo garaacay. marka daanyeerkii cusbaa markuu isku dayaba mooska inuu ku boodo, saaxiibadiisii daanyeerada ahaa mooska wada jeclaan jireen waa garaacay, ilaa markii dambe uu isagiina ku darsamo oo uu iska dhaafo mooski. mar labaad meesha waxaa ku jirta 4 daanyeer oo biyaha qabow taqaan iyo hal daanyeer oo biyaha qabow arkin, laakiin arkay hadduu mooska taabto in la garaacayo oo u fahamsan daanyeerkii mooska taabto in la garaaco. waxaa la yidhi marka tijaabada aan sii wadno, 4tii biyaha qabow hore usoo aragtay daanyeer ayaa haddana mid laga soo saaray oo lagu bedelay mid cusub. marka hadda waxaan haysanaa 3 daanyeer oo biyaha qabow soo aragtay iyo 2 daanyeer oo mid in la garaaco qofkii mooska taabto uu arkay iyo mid cusub oo sheekadan ba warwayn. tabinkii kii horaa loo galay asagana waa la tumay. waxaaba ugu horreeyeyba daanyeerkii aanan biyaha qabow arkin ee mooska markuu taabtaba la tumayey ayaaba ugu horreeyey wax soo dhaweey, tumitaan ku soo dhaweey. markuu kii cusbaa mooska taabto isagana waa la garaaca. so 3dii biyaha soo aragtay iyo kay tumi jireenba waxay wada garaacaan midka cusub ee imaado. siday isagana u tumayeen mooskii wuu iska daayay oo iyagoo lamid noqday. tijaabadii waa la sii waday, waxaa laga saaray mid kale, asagana sidii loo tumayey wuxuu iska dhaafay mooskii ilaa markii dambe kii ugu dambeeyey ee biyaha ogaa laga saaro oo meesha ay isugu imaadaan 5 daanyeer oo weligood biyaha arkay. laakiin waxaa meeshii ka abuurmay dhaqan kale, daanyeerka imaado oo mooska taabto waa la tuma. marka qolkii waxaa ka bilowday 5 daanyeer lagu bilaabay dhaqan ah in daanyeerkii cusub ee imaadaba mooska uusan taaban karin, banaanaha uusan taaban karin, ee daanyeerkii moos taabta ama banaana taabta la garaaco oo asagana la bara dhaqanka cusub inaanu daanyeer taabanin mooska. marka bointigaas ku jiro meesha wuxuu yahay in dhaqan doorsoon lagu sameeyey ee daanyeeradaas oo asfaar ay jiraan daanyeero yaqaano in wax la garaaco, daanyeerka imaadaba ay garaacayaan oo processku iska sii socon karo ilaa uu imaado daanyeer fikirayo oo dhaho maxaad igu garaacaysaan, waayo kuwii biyaha soo arkay ma joogaan. inta kaloo dhan waa daanyeero soo arkay oo lasoo garaacay markay imaadeen. iyagana wixii lagu sameeyey ayay ku sameeyeen maxaa la yidhahdaa daanyeerada kale. ka dadka afaare qabiiliistayaasha ah waxay dhaqankaas qabyaaladda ku dhisan kasoo dhaxleen dad kale, sida daanyeerka uu isaga dhexlaayey maxaa la yidhahdaa tumitaanka inay tumaan daanyeerkii mooska taabto. iyagana waxay isaga dhaxleen in ay qabiil nacaan iyagoon ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambaysa inay qabiil nacaan ama dhibaateeyaan ama wax liista u arkaan iyagoon ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambaysa. insha allah intaasaan aan uga tegi doonaa. subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa natuubu ilayk.